ka hadla wararka weyn ee dhinaca dunaasiyada ee maamulka Puntland ayaa sheegay in ay ka baqayaan in magaalada Muqdisho iyo xarunta dalka Soomaaliya inay ururka ay gacanta ku dhigaan shabaab kuwaas oo ay ku tilmaantay inay khatarteeda leedahay siday wararku ay sheegayaanna waxaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi Maxamuud Caydi Dirin uu sheegay inay muuqato halis aad u xooggan sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan Puntland ka gabangaabsan doonin isla markaasina inay ka leexad doonin hor u wadista qorshayaasha iyaga u gaarka ah oo ka mid ka tahay ayuu yiri samaysashada aqoonsiga Puntland oo sheegay inaysan cidna ku xidhnayn waxa uu cambaareeyay isku dayada lagu joojinayo arrintaasi wuxuuna ku tilmaamay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay go'aansatay marka dambeysay inay khataraha qaarkood ay qaadato isla markaana ay saameyn taban ay ku yeelato dhinaca kalena waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo waaweyn oo ay ka mid ka tahay aqoonsiga maamulka ICC Khaatimo la siiyay kaasoo uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo kadib markii wax laga weydiiyay dhowr arrimood waxaana uu ku tilmaamay in arrimahaasi ay noqon doonaan kuwo Puntland haba yaraatee aysan hadeerto ka hadal mowqifkeeda aysan cadeynin isagoo ku gaabsaday in wasiirka koobaad ee dalka ra'iisul Xamse Cabdi Barre uu inuu yimaado magaalada Muqdisho isaga iyo rag kale la socday aysan ahayn haba yaraatee wax ceeba ee ay tahay ayuu yiri dhul Soomaaliyeed oo markay doonaan ay imaan karaan taasina haba yaraatee Puntland oo arag wax khatar ra'iisul wasaaraha dhinaca kale xukuumadda federaalka dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray shalay hirgelinta siyaasadda qaran ee darajooyinka iyo mushaharaadka shaqaalaha rayidka ah waxa uu sheegay in siyaasadani ay tahay mid xoojinaysa xuduudda shaqaalaha Soomaaliyeed ra'iisul Xamse ayaa xusay in siyaasadani ay bedeli doonto nidaamkii hore ee muddada dheer lagu maamulayay shaqaalaha dowladda isla markaana ay horumarin doonto shaqo gudashada cadaaladda iyo kor u qaadista kartida shaqaalaha rayidka waa maalin muhiim u ah ayuu yiri qaranka iyo shaqaalaha dowladda daafurka siyaasadda qaran maanta waa mid kamid ah ayuu yiri qorshayaashii ugu muhiimsanaa ee la ansixiyay taasoo ah ayuu yiri guul weyn waxaan rabnaa in golaha wasiirada iyo shaqaalaha dowladda dhamaantood si isku mid ah loo dhaariyo si daacad ay ugu adeegaan dalkooda ayuu sheegay arrintaas ayaana lagu tilmaamay inay kamid tahay mid kamid ah markii ugu horeysay shaqaalaha dowladda lagu soo daro qaybta dhaarinta iyo kataamarinta oo ay kamid tahay in ay eego in ay gabi ahaanba ay diyaar u yihiin dalka inay maamulaan dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya oo ilaa hadda sii wadato qorshayaasheeda ku aadan arrintaasi kuna aadan arrimaha doorashooyinka iyo in aysan cidna loo joojin doonin ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay kordhiyeen muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda guddigan oo lagu muransan yahay ayaa ku wargeliyay ururada siyaasadda iyo dhammaan daneeyaasha kale ee arrimaha doorashooyinka inay kordhiyeen muddada diiwaangelinta ururada kadib markii ay ku tilmaameen inay muddo 9 maalmood arrintaas sameeyeen warqadda guddigu soo saareen ayaa lagu yiri wargelin muhiim ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqada dastuuriga isla markaana dardar gelinaya howlaha baaxadda leh ee mudnaanta u leh gaar ahaan ay yiraahdeen diiwaangelinta ururada siyaasadda guddiga oo si amba qaadaya howlaha doorashooyinka wuxuu tixgelin gaar siiyay kow marka uu arkay yiraahdeen xawliga ay ku socoto diiwaangelinta ururada siyaasadda laba markuu garwaaqsaday muhiimadda diiwaangelinta ururada siyaasadda u leedahay howlaha doorashooyinka iyo saddex markuu tixgeliyay codsiga uga imaanaya ururada siyaasadda ee ku jira hanaanka dhamaystirka shuruudaha iyo dukumeentiyada xafiiska diiwaangeliyaha guud ee guddiga haddaba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha wuxuu ku wargelinayaa ururada siyaasadda iyo dhammaan daneeyaasha kale ee arrimaha doorashooyinka inuu ku kordhiyay muddo diiwaangelinta ururada siyaasadda 9 maalin oo ka bilaabo doonta yiraahdeen maalinta saalisada oo ah 22 bisha oo maanta ah ilaa socod doonta yiraahdeen kuna eg 30 bisha afraad 2025 inkastoo guddigan ay yihiin kuwo aysan aqoonsanayn inta badan maamul goboleedada haddana waxay sheegeen inay sii wadi doonaan hanaanka daadejinta waxay ugu yeedeen doorashooyinka dowladda dalka Iran ayaa sheegtay in ciidankeedu uu markii ugu horeysay uu gaaray markii fiida ugu sarreysa ee markii ay u baahnaayeen ay yiraahdeen amkaaniyaadka meesha ay tigsanayeen oo dhan ayadoo dalku isku diyaarinayo wada hadallada waxa ka soo naasacadaada iyo in lagu kala kaco labadaba sidoo kalena ay jirto galaale wax loogu arkayo markaas galaalif aad u xooggan oo ay sameynayaan ciidamada dalka Mareykanka iyo cartan ay gabi ahaanba ay ku qoryeenayaan goorsi horeysay ay ka digeen madaxda Mareykanka qaarkood inay suurtagal tahay inta la military isla aado hadii la isku afgaran waayo arrimaha wada hadallada ayaa lagu tilmaamay loona arkaatan inay tahay bandhig Brigadier General Maxamed Mahdi Najat Nuuri ku-xigeenka taliyaha qaybta howlgallada soo saarista sayniska horumarinta iyo tiknoolajiyadda ee madaxa guud ee taliska ciidanka qalabka sida ee loo yaqaan General Staff of Armed Forces ayaa waxa uu sheegay in wadanka hadeerta ciidankiisu aysan dib uga cabad doonin in aysan haysanin agabkii iyo toolka ay ku dagaalami lahaayeen wax kasta oo maanta dunida dalalka ay haystaan ciidankooda oo ah wuxuu ugu yeeray the most sophisticated technological advancement oo ah
qalab aad iyo aad loo hormariyey oo noocii ugu sii casirsanaa uguna horumarsanaa ayaa haysataan oo ay ku jiraan ayuu yidhi sistamada nooca ciidamada ay nooc walba isticmaalaan wuxuu ammaanay hanaanka horumarinta barnaamijka garaad gacmeedka artificial intelligence oo sheegay in doorkii ugu dambeeyey ama wixii ugu dambeeyey la isticmaali karayay uu ahaa wuxuu kaloo ammaanay hanaanka gantaalaha raabaraabaha gabadhida gaashaaman agabyada kala duwan wuxuuna sheegay in wadanku uu diyaar yahay xumaan iyo samaanba colaado ayaa weli ka taagan gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe halkaasoo dowladdu ay sheegaysa inay ku dagaalamayso xidii ururka wax qarbudaa uu isku dayayo inuu ayaguna dhinacooda ay weerar qaadaan howlgal si wada jir ay u fuliyeen cutubyo ka tirsan ciidanka ururka 64aad guutada 7aad ee qaybta 12 April oo kaashanayay ciidanka booliiska degmada Walaweyn ayaa sheegay in weli ay sii wadaan deegaano ay ka mid ka tahay howlgalla ka soconaya yaaq bari weyne iyo sidoo kale leego waxaana lagu tilmaamay in weerarada qaarkood ay ahaayeen kuwo muhiim ah dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayaysaa in ay iska caabiso duullaanada xibraha ay ka imaanayaan ayaa la yiri deegaanada qaarkood gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo wadnaha farta looga hayo ciidanka dalka Turkiga ayaa iyaguna dhawaan soo gaaray iyadoo la sheegay in ciidanka dalka Turkiga ay soo badanayaan laba diyaaradood oo shalay degay ayaa tafaasiil ka soo baxay sheegayaan inay ku jireen ciidamo kamaan dawsi oo dalka Turkiga laga leeyahay ama dalka Turkiga ka socda kuwaas oo lagu tilmaamay inay sii ballaari doonaan howlgalka caawinta dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed ayaa dalab u dirsatay arrintan kadib markii intii badneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku noqdeen kuwa waxyeelooba dagaaladii ugu dambeeyay tan u muuqataa balay talaabooyinkiisa xigay ee ugu dambeeyay wax loo arki karayo ayaa la yiri in ay dowladda dalkaasi ay diyaar u tahay Turkiga in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya labadaba ay caawiso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa si aad xoogan u rabta inay qaado talaabooyin wax ku oola balay oo ay ka mid ka tahay adkeynta iyo xaqiijinta badqabka dalka gaar ahaan magaalada caasimadda iyo difaacista ciidanka dalka Turkiga la keenayo ayaa lagu tilmaamay inay gaari karaan ilaa iyo 2500 ilaa iyo 3000 oo askari waxayna noqon doonaan ciidankii ugu ballaadhnaa ee indhaweeto ay dowladda dalka Turkiga dibadda dalkeeda u dirto Turkiga ayaa saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay qaaradda Afrika wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho duleedkeeda Turkisom halkaas oo markii dambe ay sheegeen inay ku wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dowladda Turkiga ayaa ciidankeedu waxay howlgal ka sameeyeen dalalka Liibiya oo ay taageero ka geysteen dalka Azerbaijan iyo sidoo kale dhowr goobood oo kale ay gacmo u fidiyeen waxayna arrimahaas oo dhan ay keeneen baleeri xaqiijinta gacan sareynta hanaanka ku aadan waxa loogu yeeray inay iska waabiyaan wadamadaasi ama dowladahaasi kooxii ku kacsanaa Turkiga ayaa ciidankiisa waxay ku qalabaysan yihiin markaasi qalabka tiknoolajiyada ugu dambeysay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana loo arkaa in diyaaradaha ay ka mid tahay Baykar ay yihiin kuwa ugu waaweyn ee marka ka dameysa ka qayb qaadanaya weerarada iyo weerar celisyada waaweyn ka dunida dabashana qiimaha badan si kasta iyo meel kasta aad naga maqlasaan waa wararkii ugu dambeeyay cali dhinaca dulansiyaadda caalamka ee dabashana qiimaha aan fiiriyo xogaha kale dhinaca dulansiyaadda caalamka oo dhan iyo si kasta meel kasta naga maqlasaan Abbas Araghchi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran ayaa isaguna waxa uu sheegay in ahaanba wada hadallada uu leeyahay dalkiisa uu leeyahay Mareykanka ay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay ku wargelinayeen wadamada kale saaxiibada wuxuuna sheegay in wadamo kala duwan uu khadka telefoonka kula xiriiray oo gobolka ka mid ah wadamada Carabeed kuwaas uu ka markaasi warsiiyay ama uu uga waramay waxyaalaha dhacay wuxuuna sheegay in wadamada caalam islaami ee wararka lala yeeshay iyo telefoonada ay kamid yihiin wadamada wasiirka arrimaha dibadda dalka andhaho Qatar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Pakistan iyo wasiirro kala duwan oo wadamada caalam islaami oo dhan kamid ah kuwaas oo ay Iran ka warsiisay waxa uu ugu yeeray wasiirkani in laga xogsiyo wadamada gobolka ee saaxiibada iyo walaalaha ah ayuu yiri wixii ka soo naasacdaaday wadahadaladii ka dhacay Rome gaar ahaan xarunta diblomaasiyadda ay iska leedahay wadanka loo yaqaano Oman dowladda Oman ayaa weli doorka dhexdhexaadintaas sii wadata ayadoo sidoo kale la sheegay in wadahadaladu ay yihiin kuwa wax ku ool dhinaca kalena Iran ayaa sheegtay inay gabi ahaanba khad cas ay tahay in la isticmaalo gabi ahaanba gabaadsaar iyo laga dhigto foodsaar ay yiraahdeen oo khad ahmar ay tiraameen in gabi ahaanba hubka nukliyeerka ah iyo la isku khaso ay yiraahdeen awoodda civilianka ee nukliyeerka waxay sheegtay Iran inaysan yeeli doonin in gabi ahaanba la yiraahdo waxaad noqotaan kuwa ka tanaasula awoodda dhinaca nukliyeerka aad leedihiin oo ah mid ay ku samaystaan hanaan aad u xoogan oo ugu yeedheen inuu noqon doono hanaanka bacriminta maadada uraniumka gaar ahaan qaybta loogu baahan yahay soo saarista dawooyinka biyaha iyo waxyaalaha kale imkaaniyaadka ah
taasoo ay ku tilmaantay inay tahay haba yaraatee waxaysan aqbali doonin. Iiraan gabi ahaanba khad cas ayay u tahay arrintaasi inay gabi ahaanba ka tanaasusho, mana doonayso Iiraan haba yaraatee in wada hadallada lagu dabaqo oo la isku dhex qaso ayay yiraahdeen, iyadoo Iiraan ay doonayso inay wada hadalka ka ogoshahay oo ay ka gariigil ka tahay hubka nukliyeerka laftiisa ama bam nukliyeer in la isticmaalo ama la samaysto, laakiinse haba yaraatee gariigil kama aha, kamana xaajoonayso oo wada xaajoodkeeda kuma jiraan ay yiraahdeen. Dhinaca marka ay timaado hubka nukliyeerka, baarlamaanka waddankaas ayaa saas ku dhawaaqay. Baarlamaanka waddanka Iiraan ayaa uga digay xukuumadda inay fuliso siyaasado aan isla ogoleyn, gaar ahaanna guddiga loo yaqaano guddiga baarlamaanka ee amniga qaranka iyo weliba siyaasadda dibadda ee loo yaqaano Iran Parliamentary National Security and Foreign Policy Committee, waxaana ku tilmaantay in arrimaha noocaas oo kale ay yihiin inay kala cadaadaan markay noqoto barnaamijka uranium-keena ee aynu ku baadigoobayna bay yiraahdeen hanaanka dhamaystirka. Waxay ugu yeedheen markaasi awood uu waddanku u yeesho gaar ahaan qaybta tabarta nukliyeerka iyo in aan la isku qasin bambooyinka, waxaana sheegeen in ay maqmaqlayaan hadallo dhuhdhuha iyagoo ku eedeynaya dowladda qunyar socodka ee madaxweyne Pezeshkian in uu gabi ahaanba salbabaqi karo. Dhinaca kalena Iiraan ayaa sheegtay inuu socdo qorshe aad u xooggan oo laga yaabo inuu barifur ballaaran ku noqdo amniga iyo hore u socodka wada hadallada, iyagoo sheegay in hanjabaadi ka soo yeedhay Netanyahu hogaamiyaha nidaamka Israa'iil in ay barifur ku noqon karto. Waxay ugu yeedheen halista wada hadalladu inay burburaan. Ninkan wuxuu doonayaa wada hadalladu inay si rasmi ah u burburaan, sababtaas ayuuna u raadinayaa sida muuqata in uu gabi ahaanba weeraro uu dumo, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Ismaaciil Baqay oo sheegay inay ogaadeen xog duulaan. Wuxuuna sheegay in ay jiraan ayuu yidhi kooxaha dagaalka macaashayaasha warmongering dadka loo yaqaano weeye dagaalka macaashayaasha dagaal oogayaasha ayaa qorshayaal barifura wada, kuwaasoo ay xitaa taageerayaan ayuu yidhi qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka iyaguna dagaalka noocaas oo kale jecel. Ilaa hadeerto wadamada la eedeynayo ee mufurta uu ku fidayo waxaa loo maleynayaa inay ka mid yihiin waddanka Faransiiska oo dhowaan isagu shir ah gudoomiyey inay suurtagal tahay inay dhacdo dagaal military oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, taasoo loo arkay sabab ay shir u qabtaan Faransiisku arrin noocaas oo kalena u wadaan inaysan meesha ku jirin. Hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka hay'adda u qaabilsan dalka Iiraan ee caalamiga ah ee sameynta tabarta energy-ga ayaa sheegtay inay 90% u baahan tahay inay gaarsiiso maadadeeda si ay u soo saarto hub nukliyeer, laakiinse sidaa daraadeed iyadu kaliya ay doonayso inay 60% kaliya ay joogto oo aysan dhaafin. International Atomic Energy Agency of Iran ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto hanaankeedaasi, iyadoo dhinaca kale hay'adda IAEA iyaduna ay ku tilmaantay inay Iiraan ay wadada saaran tahay inay 60% weedaarato, taasna ay khatar aad u xooggan ay dhinac walba keeni karayso ayay hadalka u dhigeen. Tarbeelka wararka oo caalamka dhinaca dowladda dabashana qiimo badan caalamka wararka ugu dambeeyay dunida ayaad maqli doontaan. afar wasiir oo ka tirsan nidaamka Israa'iil ayaa warbaahinta kan waxay soo mariyeen in sida ugu dhaqsaha badan loo qabsado oo loo wada wareego looguna soo daro dhulka Israa'iil ay yiraahdeen daanta galbeed ee maamulka Maxamuud Cabbaas uu ku shaqeeyo dhan. Afar wasiir oo kamid ah wasiirada ka kan ee nidaamka sanadiyada Israa'iil oo kala ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Israel Katz, wasiirka arrimaha dhulboobka ama u qaabilsan waxa loo yaqaan arrimaha Mooryaanta National Mission baa loo yaqaan minister ay ku magacaaba oo leeyahay Urid Stroke, wasiirka cadaaladda Yarif Levin iyo Najaf Galili iyo waliba wasiirka wasaaradda arrimaha adkaysiga oo loo yaqaan Yitzhak Wasarlu ayaa dhamaantood waxay dalbadeen si ugu dhaqso badan dhulkaasi loola wareego. Afartan wasiir waxay Netanyahu u sheegeen in dhulkaasi lagu sameeyo waxa loo yaqaan annexation ama in lagu soo darsado dhulka Israa'iil. Boobkii kaniisadda Catholic Pope Francis ayaa ku geeriyooday da'da 88 jir. caalamka oo dhan ayaa ka hadlay, inta badan madaxda dunida ayaa ka falcelisay geerida boobka oo maalintii hadda ahayd la arkay isagoo lagu wada gaaray gacan isla markaana marayay markaasi qaybta ducada oo dadka salaan u taagayay ayaa laga dareemayay in uu gabi ahaanba aad tabcaan u ahaa, walow uu saarnaa markaasi gaariga isla markaana gacanta kor u qaadi karayay. boobka ayaa xaaladiisu darsatay sida ay sheegayaan markii dambe xarunta uu ku geeriyooday. boobka ayaana la arkayay markaasi in uu ahaa nin markaasi inkastaysan ku xidhnayn bahasha neefto, haddana si kastaba ha noqotee meesha banakoolka markuu isoo taagay gacantana uu doonayay in uu gabi ahaanba taago, waxa uu la arkayay tabardarrada gacantiisa ka muuqato, wuuna hadlay markaasi hadal yar ayuuna markaasi meesha ka sheegay. banakoolka ayuu soo taagay halkaas ayuuna ka yidhi dadkii markaasi ciid wanaagsan. markii dambana gaariga yar ayaa lagu soo gaxayay ama lagu soo qaaday boobka halkaas oo dadku ay ka salaamayeen, isla markaana qaarkood ay markaasi ka salaamayeen. ilmo yar baa la arkayay oo loo keenay oo markaasi uu sanka ka taabanaya ama gacanta halkaas oo la arkayay markaasi in uu ay dadka Kirishtaanka aaminsan yihiin haddii boobku taabto inuu ilmaha yar caafimaadaya ama
ما قانو waxay ayagu ka wadaan laakiinse tabcan inay saas u badan tahay markaasi waxa uu halkaasi boobkaasi geeriyooday hadaba wuxuu lahaa arrimo dhowr ah oo uu kaga duwanaa boobabkii dunida soo maray wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda siyaasadda Israa'iil ay ku leynayso dadka reer Qasay dhowr iyo 10 jeer intii dagaalku u socday hadallo uu soo saaray inta wuxuu ku tilmaamay in halka xasuuqa ka soconaya la joojiyo dhowr jeerna wuxuu isku dayay inuu isbedel ku sameeyo kaniisadda iyo qaabkeeda ceebo aad u xoogan ayaa kaniisadda soo food saaray intii uu isagu u hayay kuwaas oo dhacayay intii gabi ahaanba ka horeysay laakiinse markii dambe soo baxay fadaxaa soo baxay ayaa kamid ahaa caruuro wiilal yaryar oo la farxumeeyay boobka ayaa ugu dambeyntii markii dambe wuxuu ku dhintay 88 jir wuxuu dhashay bishii December 17keedii sanadka 1936 wuxuuna markaasi ku dhashay magaalada Buenos Aires ee xarunta wadanka loo yaqaano Argentina waalidiintii ayaana markaasi isagoo yar waxay soo haajireen dalka Talyaaniga halkaas ayuuna markaasi muddo badan ku noolaa markii dambana wuxuu ku biiray kaniisadda intaasna waxa uu inta badan ahaa nin kaniisadaha ka shaqeeya waxaana la aaminsanayay in markii ugu horeysay ee kaniisad madax looga dhigo ay ahayd ayaa sanadka 1969 madaxda caalamka oo ku jiraan kuwa islaamka ayaa ka tacsiyay madaxweynayaasha kala duwan ee dalalka reer galbeedka ayaa safaf u galay markaasi tacsidiis madaxweynaha Faransiiska hogaamiyaha Jarmalka Frederick Merz madaxweynaha Faransiiska Macron hogaamiyaha dalalka madaxweynaha midowga Yurub haweeneyda Ursula von der Leyen raiisul Hindiya Narendra Modi madaxweynaha nidaamka Israa'iil Isaac Herzog raiisul wadanka loo yaqaan Australia New Zealand raiisul Pakistan raiisul Lebanon madaxweynaha Malta madaxweynihiisa Poland madaxda kala duwan ee caalamka oo ay ku jiraan markaas kuwa Carabta ama wadamada hogaamiyaasha Carabta ayaa iyaguna kamid ah dadka tacsida u diray kaniisadda iyo dadka Kirishtaanka madaxweynaha dalka Masar ayaa kamid ahaa dad iyaga markaasi ka tacsiyay geerida Bob ka loo yaqaan Bob Francis oo markaasi ay ku geeriyooday da'da 88 kan doonor damashana qiimaha badan wararka wacala dhinaca dawladda caalamka oo dhan si kasta meel kasta gaba qalasaan oo wararka ugu weynaa iyo wacala dhinaca dawladda ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo xagga cirka oo la sheegay in la beegsaday suuqa loo yaqaano xaafad caan oo ku taala Yemen magaalada Sanaa sida ay sheegeen warbaahinta kooxda Xuuthiyiinta ee loo yaqaano markaasi inay proxy-ga Iran yihiin Mareykanka ku sheegay warbaahinta Xuuthiyiinta ayaa sheegtay in weerarka lagu beegsaday suuqa caanka ku yaala xaafadda Farwa ee degmada Shacuub halkaas oo ah magaalada Sanaa waxayna sidoo kale intaas ku dareen in kooxaha gurmadka ee loo yaqaano dhooliyaasha iyo kooxda markaasi loo yaqaano gargaarka difaaca rayidka ay wadaan dadaal ay ku doonayaan in goobaha dhibaatadu ka dhaceen iyo burburka ay dadka laga soo saaro telefishinka Al-Masira oo ah warbaahinta ururka Xuuthiyiinta ayaa sheegay in gardarrada Mareykanka ee lagu qaaday xaafadda Farwa ay sababtay khasaare weyn oo hantiyeed oo gaadhay guryaha muwaadiniinta iyo dukaamada baraha bulshada qaar gaar ahaan barta X ee horey loo oran jiray Twitter ayaa lagu baahiyay muuqaallo ay kooxdu ku tilmaameen inay yihiin sawirro hordhac oo laga helay weerarka Mareykanka oo lagu qaaday suuqa caanka loo yaqaan Farwa tan ayaa maarsa iyadoo dawladda Mareykanka ay wali ay sii wado weerar ay ugu yaadhay inay kooxda ku gaagoontirayso dhinaca kalena kooxda ayaa ku dhawaaqday daqiiqada kadib markii weerarkaas uu dhacay inay iyaguna ka argoosteen Mareykanka iyo kooxda u helinayaan beeralayeen Israa'iil halkaan ay gantaalo ku garaaceen Yaxya Sariic afayeenka kooxda ayaa sheegay in gantaalo loo diray gudaha Israa'iil laguna burburiyay goobo ay kamid tahay magaalada Elliot halkaas oo uu sheegay in gantaalka nooc loo yaqaan Samet hal lagu riday iyo sidoo kale diyaarado kale oo iyaguna noocan duuriyaha lahay waxay ka digtay ururka Xuuthiyiintu inaysan joojin doonin kana gaban-gaabsan doonin gabi ahaanba dagaalkaasi iyo inta ay sii wadi doonaan wararka wacala dhinaca dawladda dunida oo dhan daawashana qiimaha leh si kasta iyo meel kasta gaba qalasaana waa wararka xiisaha badan ee gaanka dunida oo dhan ee xogaha gaashaanka dalka Mareykanka ayaa mar kale la sheegay in uu xogtii qaranka uu la wadaagay dad iska caadi waxaa jiray ayaa la yiri group kale oo signal group oo sidoo kalena uu ninkani la wadaagay xogta taasoo shakhsiyaad caadi ah ku jiraan tanoo ka dhigaysa sheekadii hore ka daro dib dhal waxaa la sheegay in Mr Peter Hegseth uu ku soo daray group kale oo uu sameeyay oo laga hadlayay xogta dagaalka Yemen xubno qoyskiisa kamid ah kuwaas oo ka mid ah xaaskiisa iyo walaalkii siday wararku ay sheegayaan baaritaano socda oo saraakiil hore oo shaqadan looga ceyriyay arrintan la ajigeed ayaa la sheegay in ay ku maqraati fureen ninkan oo sheegeen iyagu inaysan wax qalad ku lahayn haba yaraatee saraakiisha carada lagu dhacayo saddex markaas la taliye sarsare wasaaradda gaashaandhigga kamid ahaa kuwaas oo sheegay inaysan iyagu sameynin qolka lagala tashanin qolka sidoo kale qofka waxaasi sameeyay ee Trump intuu ayaga ku qarbaxayo ay ahayd in uu la xisaabtamo qofka ugu sareeyo isaga telefoonkiisa ka sameeyay ayaa la yiri wali wuxuu isticmaalay sida wararku ay sheegayaan telefoonkiisa private-ka arintani waa jabin amniga qaranka dalka Mareykanka khatar ah aad iyo aad halis u ah lama ogola amniga dalka Mareykanka markaad ka hadlaysid mawaadiicda dawladda la xiriira
sida siyaasadda dowladda sida maxay tahay arrimaha xasaasiga iyo waxyaalaha warwareynta oo dhan inaad isticmaasho telefoonkaaga khaaska ah waa mamnuuc sababtoo ah telefoonkaaga khaaska ah waa la weerargaree karaa wire timing baa lagu sameyn karaa laakiinse telefoon waxaa jirta dowladdu ay u qaybiso madaxda oo gebi ahaanba loogu talagalay in waxyaalaha xasaasiga ah howlaha dowladda lagu kala wado kaasoo xafiiska lagaga yimaado markaa shaqada ka dhamaatana haddii aadan shaqada ku jirin markaa safarka tahayna waad sidataa marka aad shaqada xafiiska shaqada awariska caadiga ah tegisid shaqada tegisid meeshaad kaga soo tegaysaa awariska sana loogu talagalay haddii aadan ka shaqeynaynin qayb markaasi 24 saac ama degdega ama howlo degdega aysan ku jirin si kastaba ha noqotee arrintan ayaa loo arkaa inay khatar aada u xoogan ay tahay qoraallo waxaa sheegay halisa inuu la wadaagay xaaskiisa iyo walaalkii xataa waxaa ku jiray ayaa meesha qareenkiisa tvga CNN ayaa soo faagay arrintan waxaana lagu tilmaamay in qalalaase iyo weliba jahawareer aada u xoogan oo aqalka Pentagon-ka ka taagan yahay sidaa daraadeedna Pentagon adeert waxaa la sheegay inay marba ka dambeysay sii darsanayso qalalaaseeda ayna xaaladdu sii xumaan karto qodobka caafimaadka ku bilaabaya qaybtan maanta cuntooyinka Soomaalidu aad iyo aad ka u jeceshahay waxaa ka mid ah bariiska wuxuu ka mid yahay cuntada main dishka ee Soomaalida inkastoo aysan Soomaalidu bariis lahayn oo aysan bariis beeran hadeerto wax bariis oo soo go'aara oo aysan jirin haddana bariisku wuxuu noqday cuntada ugu badan ee cunaa aadana badan ayaysan la wadaagaan inkastoo Asia aad bariiska uu caan uga yahay haddana wadamo badan oo kale oo laga cuno bariiska waa jira bariisku waxaa loo arkaa inay sidoo kalena ay tahay cuntooyin ka mid ah kuwa dunida aad loo isticmaalo dadka qaarkiisna waxay u isticmaalaan xataa si ka badan qamandida iyo galleyda balse cilmi baaris cusub ayaa daha ka qaaday in qiyaasta maadada halista ah ee loo yaqaano arsenic ee bariiska ku jirta ay kordhin karto isbedelka cimilada darteed markaana ay dhibaato keeni karto haddii aad u isticmaasho bariiska nooca Biryaniga ama Baolo loo yaqaano oo cuntid bariiska ugu yaraan 2 ama 3 jeer asbuucii marka maqaalkani aadiga ayuu aad ku khuseeyaa mashruucanna ka faa'iideyso saynis yahano ayaa daha ka qaaday daraasaad cusub oo ku saabsan bariiska marka qiiqa carbonka iyo heerkulka caalamku kor u kaco sidoo kale waxaa laga yaabaa inay kor u kacaan qadarta walxaha arsenic ee bariiska ku jira sida warka loo dhigay waxaana la sheegay in gebi ahaanba maadada arsenic ee bariiska ay muddo dheer dhibaato ahayd waxaana laga helaa ayaa layidhi ku dhawaad dhammaan noocyada bariiska oo dhan arsenic waxay si dabiici ah ugu dhalataa ciidda biyaha waxayna noqon kartaa sun ayaa layidhi bariiska ku jirta inkastoo xaddiga maadada arsenic ee ku jirta bariiska laga yaabo inuu aad uga hooseeyo ama xitaa marar badan ka sareeyo xadka ay dejiyeen hay'adaha sharcigu xitaa haddii xaddi aad u yar oo arsenic uu ku jiro shay cunto ama biyo la cabo waxay keeni kartaa cudurro kale oo ay ku jiraan xanuunka kansarka ama kaankarada sida ay wararku sheegayaan iyo xanuunka macaanka labadaba cilmi baarayaasha adduunka ayaa ku howlan sidii ay u yareyn lahaayeen xaddiga arsenic ee bariiska ku jirta laakiin waxaa kale oo jira habab badan oo bariiska loo kariyo kuwaasoo meesha ka saaraya maadadan waxyeelada leh haddii qaababka qaarkood loo kariyo waa halka aad Soomaalidu ka tiraahdo marka cuntada la kariyo suntu saas kaga baxaysaa oo kale laakiin daraasaadda cusub ee la sameeyay ayaa daha ka qaaday in dhibaatadani ay sii weynaan karto isbedelka cimilada awgeed gaar ahaan heerkulka cilmi baarayaashu waxay kordhiyeen 28 nooc oo baaris ah 4 goobood oo kala duwan oo Shiinaha muddo 10 sano ah waxay ogaadeen in kororka heerka carbonka ee laba nooca oxide-ka iyo heerkulka jawiga iyo sidoo kale ay kordhiyeen xaddiga maadada arsenic ee bariiska ku dhex jiri karta cilmi baarayaashu waxay ku qiyaaseen in kororka heerka arsenic ee bariiska uu keeni karo kororka kiisaska cudurka kansarka ilaa 20 milyan gudaha dalka Shiinaha oo kaliya inkastoo cilmi baarayaashu ay diiradda saareen goobo ku yaala Shiinaha oo ay ku tijaabiyeen haddana waxay sheegeen in saameyn noocan oo kale ay sidoo kale u badan tahay in lagu arko bariiska laga beero Yurub iyo Mareykanka sababtoo ah maadada arsenic ee aan dabiiciga ahayn ayaa ku badan bariiska laga beero adduunka oo dhan tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in arsenic ay ku jirto biyaha dhulka hoostiisa gobollo badan tusaale ahaan 2.1 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka ayaa caba biyo leh heerar halis ah maadaama arsenic halka qiyaastii 40 milyan oo qof oo adduunka ay cabaan biyo leh heerarka arsenic maadada loo yaqaan oo ka sareysa tilmaamaha hay'adda WHO ee goorsiyorisay ee ku talisay biyaha la cabo ka sagow isha ugu weyn ee arsenic ee adduunka oo dhan waa bariiska waana meesha la aaminsan yahay inay qoomaarto tani waana waxa kasta oo la oran karo waa meesha ay ka imaanayso arsenic oo keeni karta xanuunadaasi walwalka haddaba khubarada caafimaadka ayaa ah marka cilmi baarisyo badan lagu sameeyay maadadaasi waxaa sii badanaya waxyeelada ay u leedahay dadka dib u eegis cusub oo ay sameysay maamulka ilaalinta deegaanka Mareykanka ee loo yaqaan EPA ayaa muujinaysa in maadadani ay aad uga awood badan tahay inay keento kansarka sidii in ka badan sidii hore loo rumaysnaa ayna hadal khatar tahay
Kevin Netchman oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda caafimaadka dadweynaha ee Johns Hopkins Bloomberg u sheegay hadda waxaa jira cadeymo ah in arsenic ay kordhiso khatarta kansarada maqaarka oo kaliya laakiin sidoo kale kansarka sanbabada iyo kaadi haysta ayaa noqon kara mid kale kansarka kasakow arsenic waxaa kaloo ay kordhin kartaa halista xanuunada dhibaatooyinka ee wadnaha iyo macaanka ayuu yidhi qaadashada badan ee maadada arsenic ee haweenka uurka leh waxay sidoo kale kordhisaa halista dhimashada dhallaanka iyo sidoo kale khatarta ah inuu ilmuhu ku dhashaan miisaan yar khataruhu waxay u kala duwan yihiin dadka tusaale ahaan dib u eegista EPA ama EPA oo hay-adda deegaanka ee dalka Mareykanka waxay ogaatay in soo gaarista maalinlaha ah ee eber dhibic 13 micrograms ee maadada arsenic ay tahay 1 kilogram oo miisaan ah ay la dhiganto ama 7.1 microgram oo arsenic maalintii qofka 60 kiilo ah waxay kordhisaa khatarta kansarka kaadi haysta qiyaastii 3% iyo khatarta cudurka macaanka 1%. Haddaba ka sokow dhimista qiiqa kaarboonka ee sare u kaca heerkulku maxaa kale oo saameyn karnaa si aan uga fogaano taas kaliya ma joojin karno cunista bariiska ayuu yiri professor Netchman suurtagalna maaha ayuu yiri intaa waxaa dheer buu yiri bariiska waa cunto aad muhiim ugu ah buu yiri dadka saboolka ah sababtoo ah qaarkood waxay ka helaan bariiska dhammaan kaloriinkii ay u baahnaayeen laakiin waxa aan u baahanahay in aan sameeyno wax ka duwan sidii aan wax uga qaban lahayn dhibaatada tusaale ahaan qaabka karista ayaa lagu taliyay in aad wax looga bedelo taasoo ah dhaqitaan in lagu sameeyo bariiska aad loo radiyo sidoo kale la sameeyo wax loo yaqaan markaasi talaabooyin kale wax ku ool waa arrin aad Soomaalida u khusaysa arrintan sidaa daraadeed waa barnaamijka saas ayaan u dheereeyay uguna dheeraaday macluumaadkuna waliba uu sii socdaa laakiin intaas ku joojinaya balse waxaan rabaa inaad ogaataan taas maadaama bariiska ay maadadaas ku wada jirto aad isooga radi aad u dhaq 2 jeer dhaq hana iska karsan si aad markaas wasaqda badankeeda uga saarto tarbeelka wararka calaamada dhinaca dawladda caalamka dabashana qiimaha laakiin ka gaandunida oo dhan aan eego dawladda dalka Shiinaha ayaa digniin ka wadameysa waxay u dirtay dalka Mareykanka wadamada ay ku tilmaantay inuu qoba ciyaaraya dawladda Shiinaha ayaa ka digtay inay jiraan wadamo ay ku tilmaantay in ay hor ordayaan Mareykanka isla markaana ay u muuqdaan marba ka dameysa in ay Mareykanka ay leeyihiin jaal kolka ay noqoto in ay ku raacsan yihiin Mareykanka waxa foosha xun ee ku sameynaya dalkaasi ayadoo madaxweynaha dalka Mareykanka wali uu aaminsan yahay in madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping uu jilbaha u dhigi doono isla markaana isagu soo wictami doono laakiin ma jirto haba yaraatee wax wicitaana oo uu ninkaasi sameeyay waxaa hadda Shiinuhu ay ku doodayaan in wadamada qaarkood laga yaabo inay dagaalka markii Mareykanku kaligiis Shiinaha waxba ka tari kar waayay bay yiraahdeen inay Mareykanka dhinaciisa ka soo saftaan waxayna sheegtay in dawladda dalka Shiinuhu ay gabi ahaanba talaabo ka qaadi doonto iyadoo oo ay suurtagal tahay baa leeyahay in Mareykanku wadamada qaarkood uu kaga bedesho inuu ka qaado cunaqabataynta dhaqaalaha ee uu saaray ama se lacagta dulsaarka xadaafka ah inuu yiraahdo ku dabakha lacag inta leeg oo ku cayuuqa dalka Shiinaha idinkuna markaa way ka dhaafaya taasoo ah isbahaysi iyo istaraatiijiyad laga yaabo inay ka mid ahayd qorshayaasha oo madaxweynaha dalka Mareykanka u wadumay dagaalkan oo ugu yeeray inuu yahay kan ugu weyn waxay dawladda Shiinuhu hadaba ka digtay in mashruuc noocaas oo kale ay qaadaan wadamada doonaya inay appeasement u sameeyaan ay yiraahdeen ama qofka marka la cadaadiyo ama dhibaato loo geysto qofka u sii hiiliya ama wax u sii tara oo kale waxay ka digeen inay taasi noqon doonto dulmi waxayna sheegeen in nooca dulmiga noocaas oo kale aysan qaadan doonin Shiinuhu gabi ahaanba uu ka soo horjeedaa arrintaasi waxayna gabi ahaanba ay u muuqdaan kuwo si ballaaran uga soo horjeeda xanaanada qaarkood isla markaana waxay u muuqataa arrintu ay yiraahdeen mid gebgeb aan ku dhamaan doonin way ka digeen Shiinaha iyo Mareykanka ayaa la sheegay in laga baqayo inay arrintan isku bedesho gacan ka hadal oo ay military noqotaba amaanaal